waxa ay ahayd sanadkii 2001 markii hooyo Xaliimo Barrow iyo caruurteeda uu ku dhacay mid kamid ah madaafiicda ay isku ridayeen dhinacyadii xilligaasi ku dagaalamayay magaalada Muqdisho. madfacaasi ku dhacay qoyskaasi waxa ku geeriyooday mid kamid ah gabdhihii ay dhashay hooyo Xaliimo Barrow oo ka tagtay 4 caruur ah, waxaana sidoo kale qayb ka mid ah lixaadkooda ku waayay 2 gabdhood oo kale kuwaasi oo ay dhashay hooyadaasi. aabaha qoyskan ayaa sidoo kale aragga beelay. masiibadaasi xanuunka badan waxa ay urku taalo ku noqotay guud ahaan nolosha qoyska, gaar ahaan hooyo Xaliimo oo hadda ah qofka kaliya ee u dhaqdhaqaaqaya qoyskaasi. mid ka mid ah gabdhaha naafada waxaa dusha ku qaada hooyadaasi oo 70 sano jir ah. aabaha dhalay caruurtaasina waxa uu muddo ka badan 10 sano dul saaran yahay sariirtiisa. booqasho aan ku tagnay halka ay ku nool yihiin qoyskan ayaan kula kulmay hooyo Xaliimo Barrow, waxaana laga bilaabo markii aan waraysiga bilaabay ilaa intuu ka dhamaanayaba indhaheeda ka daadanayay ilmo fara badan. hooyo Xaliimo ayaa ii sheegtay inta aan waraysiga ku guda jirnay in mararka qaar ay noloshaba ka quusato markay aragto duruufta ay ku nool yihiin. adiga fikrad ma la dhici lahayd yaa lamadeed gabadhi kale oo garabkooda sareetii u sii weyneed oo curada ahayd taas iska dhaaf waaba dhimatay cawlxum ugu maysaa naftooda quntoori 20 jir haay oo inta fadho adigana aabo ilmo waxay cunaan wiilo waxay ilmo ku noolaa adan lahayn maxaas intaad adig yaa marka waxa waay tii aniga marban ku cawd bilaasta marna waxa ira hadii dadka adulka ku ilaa dadka ay garabka ku saar lahayn ika xoogay leeyahay ogdo xoog mali abti waa iska tabaryarahay waa yeelanahay wax lama hay aniga waxaan jiraa 70 sano ha 70 sano jira tabar malihi dadka wax uma hay ma qaadi kari hadii jiradaan ma day kari hadii dagaal hadda ilaahan ka meegalnaa lacal haduu dhaxta kurbada igu sii weyn waa ma qaadi kari baab wax ku qaata mahaysid aabor qaadima walaalka hor qaadima in adar hor qaadima ahli usuul oo Allah rabbi xaqiis iyo adoonka Allah soo adeeji waxaan ay ku sugi maarma ha aabaha qoyskani iyo gabadhiisa naafada ayaan sidoo kale wax ka weydiiyay xaaladooda nololeed. haddaan ilaahaydiisa maanta waxaan fadhaa 9 sano aan fadhaa 9 sano ay sanadkan ii tahay intaas baa fadhi haddaan intaas aroorsana mahay ilaashana mahay meelna ilaahaydiisa waxa ilaahay ii soo qoray aan cunay ilmo kuwayaho oo maanto aan dhalaya wax ugu suurida iyo duqdan sodaaho ma joogto. waxaan rabaa in hooyo Xaliimo Barrow inaan guddoonsiyo lacag $150 ah oo soo dhiibay wiil Soomaaliyeed una soo marsiiyay hay'adda Maamacasha Foundation oo ka shaqeysa gargaaridda ummadda Soomaaliyeed iyo waliba dadka jilicsan ee bulshada qaybeeda kala duwan. lacagtaasi waxaan rabaa inaan ku wareejiyo maama Faadumo ay ahayd inay wareejiso markay aragtay dhibka haysta hooyadan iyada xataa way awoodi weysay inay lacagtan ku wareejiso sidaa darteed ayaan rabaa anigoo qalbiga ku ooyahay inaan hooyadan lacagtan ku wareejiyo. qofta intaan soo dhiibay waa wiil Soomaaliyeed iyo soo keen waa qof naxaana waayo dadkan ay aragtay kan naxaysa ilay adoon qayr soo adeeji ilayna may ka soo qaad in ka badan Allah ka soo baxsho oo inagu kaalmayso. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho.